General Abdi Ahmed Gele Sodo. بسم الله الرحمن الرحيم. نورت waxaan idin ka raali gelinayaa anu general maahi ciidanna ma noqon laakiin ilmihii yarka ay xirada afisyoon ku soo korana afisyoon caruurtaani ma taqaano taliska militariga ee elboorka magaalada Muqdisho aadan cadda hadda u maqasheen yuu ku dhagan yahay ciidanka cirka Soomaaliya iskalayo isticmaali jiray ilmihii yarkaayo waxaan askartu markay mushaarka qaadato inta ag istaagay yiraahdeen qadaadiicda isii marka xasan asaga generalka midda ila damcay meel kale toon uga fiicanahay jira aanu soo noqdo ninka walaalkeeno qalbiga wuxuu la dhiibay saddex arrimood oo yar yar aan rabaa inaan ka yiraahdo niman waa nimanka odayaasha ama siyaasiyiinta inay cagta saaraan kacdoonka isaga ku talagalay una badan magaalada Xamar oo aan idin leeyahay xero kamid ah xerooyinkeeda ku noolaa jir horta waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxay ka soo bogsatay maanta ninkii aniga iga weyn ee beertii u falay ka soo bogsatay taariikhda ummadda Soomaaliyeed meel ku yeelanaya mana ka yeelino waan iska qabanayna maxay ahayd waxaan ka bogsanay qabiil bay ahayd qurmuun bay ahayd waxaan jirinay ahayd ciidamada anigu aan shaxaadi jiroon idin sheegayo diriya daarood iyo hawiye iyo raxweyn inaan ku jirin ma jiro wallahi billahi tallahi waa idin dhaart shucuurtaydu haddii isbedeshay iyo dulqaato 32 sano inuu jiraan abahay islaan wax shaqa kuma lihi nin asxaan ifal waxa iigu daraa ninka la yiraahdo Cali Matan Xash waad garanaysiin in marxaan oo la yaqaano duuliye saraaw full cornel oo ahaa kuleejaan oo ku jiro madaxayga saacidii u mariyay wasaqeer oo ku arkay labada shakhsiyo oo ku ruqseeyana hooyada noo qubeynaysa waxay ahayd ooyo ogaadeen oo Reer Cabdullah oo Muumina Bonkay la yiraahdo nin kasta yaqaan caarif oo bay daba degan ninkan xerada haystay oo markaa ilmaha daryeelayna Cabdi Maxamuud Cali Geelo aan nin marxaan waa wada taqaan marka nooca dad ku soo koray baan nahay waana dhibaysa qabyaaladu wayna danqinaysa ummadul qaadka odayaasha xukunka oo ka hadlaya magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta caada qaatayaasha ee isku lamaaniya wax kasto jira war dawladda doorana ma noocaanay ahay ma dawlad dilaalahay ahay ma dawlad dilaalahay ahay dawladda doorana maxay taa dilaalinta noo soo diray muxuu madaxweynaha noola hadli laay bini aadanku uu qaldama muxuu noo qanci laay muxuu action muxuu qaadi laay annaga ma doonayna dawlad dilaaliin wadata odayaal dawladeed dilaal ka yihiin maanan dooran uqaali dawladeed dilaal ka tahay maanan dooran uqaasha iyo siyaasadda hal kala bixiyo aqalku gurigiisu ku eegaya qabiilkiisu ku eegaya qabiilkiisa doortay anagu maanan dooran jufu u hadlaya nin kasta oo mikrofoonka inta qabsada istaaga ee caadifad qabiil ku hadlana waxaan u sheegayaa godka baashi Ilaahay nooga riday annagu kumaanan ridino waa u kala hormareynay sababtoo hooyada afka noogu tirta karimad taqaana waa adeerka karimad taqaana waa abtiga asal baa naloo soo baray Ilaahay casa wajallaha ayaa nooga riday farmaajo nasiibkaas u yeeshay annagoo isku duubanaan tuuranay shakhsiga idin ka hortaagan $15,000 iga baxay ina dad mobiladooda ku shubno oo niraana soo bax markaas maanta waxay joogtaa inay odayaal dilaal naga noqdaan annaga waxaan inta ku dhimanayna hantideena ku bixinaynay in oday dilaalihu uu nala hadlo war nala hadal adiga madaxweynaha haddaadan hadal garanayna isaga tag meesh ma qaando waxaan idin sheego waa lay qalday dariiqaad mari lahayd weydii rag dawladda iyo dhaqankeeda yaqaano inta ku soo dhaxbaaya haddaadan garanayna tafadaalisan nadaf oo dhinac noo dhaf waxaan kaloo ka hadlayaa shacabka Soomaaliyeed qabyaaladu meeshii idin geysa waa aragtay nin kasta gurigiisu ka dareen aaba wuxuu isku hay waayay laba caruur oo kala bah war Ilaahay aan ka yaab laba caruur oo kala baha isdishay meeshii nala tagtay fiir xumaatadeed halka ay nageysay fiir ceelka riyaan ka saaray jawaan lacag meesha la yiraahdo ceel qooxle
ama ceel bardaba aad u taqaanin waa isu dhow yihiin waxaan ku geeyay meesha la yiraahdo ceel karri shaakisa tuulo la yiraahdo ka shishaysa oo 5 luqadood looga hadlo nin qurmuunka haddaad aragto aad yaabayso oo boqornimo sheeganaya yaa intuu baqal soo fuulo yuu kelmada ka yiraahdaa kelmado adduunka waxa ka socda idin sheegay 5 qabiilo wiilka ogaadeen halkaas u jeedsan wiilka maxaan ku raadaan nimanka la yiraahdo gurahana halkaas u jeedsan ninka carusana halkaas u jeedsan ninka karalana halkaas u jeed 5 nin ka turjumaysan ninka oo nabal boqoladiisa luqadii taqaaneed uu ku gaarsiinay waa boqorka gariixe marka meeshii aan ku daahnay 3 maalmood aan xogaa degnay meeshana gabayaan laga yaqaaneen ragga Itoobiyaanka dhawaan gabayaan laga yaqaaneen looma yaqaan chief habeenkii askarta nagu soo kulxay oo naqaado 27 cashuur garaacay oo goodan nagu hay oo la meesha uma baahni degaan ilaa markii dambe lacagna la kaga soo furo waa kala dambeynta waxa keenaya nidaam waxa keenaya qabyaalad la'aanta shaqadii ma aan haduu nin gariiray yahay uu ciqaabay ninka meesha digo 2 nin aan naga mid ahay xamar naga raacdo tira anaga waa sidinka inteena kala ogaadeen yahuuyaan ahay dhagahana la ka garaacan karo ma labadii oo nagu jirta warbaahisha qabyaalada iska daay warbaahisha qabyaalada nuxur male warbaahisha qabyaalada qiimo male warbaahisha qabyaalada dhuux male warbaahisha qabyaalada wax ay tamal waligay goon dhagax ma qalbi dhagax maanan arag mana maqlaakiin maxaa ay dhibaya qodobkayga saddexaad farahayga 10 uu ka mid yahay ninka maanta yiri war dawladdu hadda way naga awood badan tahay oo yaani ma geli karno lamana dhiga karno amarayna siisana ma jiidi karno ilaahi azza wa jalla wuxuu nasiya example ciida ka badan maxaad faracaydiid inna hadhibo ummadda inteeda badanna yaani qolaba waxa ku sheegtaan wadaa 75 kun oo ciidanka markay tagayeen laba lahayn ama waa ka badbaadaya ama wax buu qabsanaya يعني ومدة مركز سيستان دي شيء على وطن قفاي ملكته ده سيستان كتر ويلكير كايو جامين يدقال كي إثيوبيا عبد القادر العمر عمر ومحاكيم تا ماشى يوقت تجين مركز شريف الشيخ أحمد يضطكوا تجين أنتي إثيوبيان إلهي يكون عذاب مجال الحمر وأكثر يبرناكو كردي بس الشخصيات صومالية يا مدافع الكوه جامين أوها عاو هالكاسي جواني كورد هالكاسي مرة يعني كسوري أسئية هاي marka ilaahina waa u suuro geliyo waa ka baxay war inteena yarta wuxuu yiri ninkii shaacirka ah xigmada ilaahay u saaxiibiyay la tahqirana saqiratan fi muqasamati inal ba'ulata tudmi bu'latu al-asad war hayasinu yiri muqaasamada markaad ku jirto shayna hayaraysan laanu yiri kaneecadu waxay dhiig ka keentaa buu yiri iliyarada libaaxa hadduu saa iliyarada yiraahdaan hadda way dhiman laakiin maxay tubadhiga ka bixso ka keenta caloosheeda ka bixsto waan isaga duushay war anagu dad jiraan nahay dad noolaanahay cidina nooma saartumi karto cidina ma dhihi karto wabi cadaab idin ku soo socdaan idin ka hortaaganna sidaas aan qalbi dhagax ku bedelan cid aan ka yeelayna male madaxweynuhu hana la hadlo ama wiilkii qalbi dhagax aan u baahanahay ama hana dhaafo hanaga tago meeshu aaday haado annagu sidaan u raadsanaa hadduu san loo keeni kara ha yiraahdo war waa qaldamay ninkeena gacanteeda waa ka baxay mana idin keeni karo midda kale nimanka baarlamaanka adeerkay dhameeyay oo hore uga hadlay laakiin waxaan leeyahay waxaan ka maqlayay shakhsiyaad idaacadaha la soo fariisiyo la leeyahay baarlamaanka idin yihiin oo leh yaani ninkan awalba Ethiopian buu ah labada caruur oo farmaajo dhalay fiiriya gala TV-ga YouTube-ka kala markuu liido ku cayaarsiinayo they don't know af Soomaali hal kelmad kama yaqaanin English ku hadlay baaflayna ku wada dhashay say ku qaadanayaan war waxa waa gartay salaad gabayro kala alhiin allamay warnaba waxaad u dhimanaysiin ha isku saxiixnina oo waxaad u dhimanaysiin ha isku meel marinina oo waxaad u dhimanaysiin afkiisa ka soo bixin haddaad maanta tiraadii wiilka Itoobiya u dhashay maxaa awowgiisii sagaalaad ilaahay uga dhigay ogaadeen waa Itoobiyaan aad tiraadiin wallahi reeb baafalaad noqonaysi oo reer Norway aad noqonaysi oo reer England aad noqonaysi inaan leeysi salaamayna wallahi inaan leeysi salaamayna wallahi wadanka wiilal baa u dhimanayay inta raga difaacay nin walba xarago u baxay baahi uga cararay jahli uga cararay nolol xumo uga cararay intii taageerana maanta nin walba waxa laga soo dhaxlay oo leeyahay dilaal iga noqo afarta walaalaha meesha ku haray waa ka soo bixi waay si kasta hadaan yeelay war oradaada ii soo bixi kara qaxooti ka soo dhigo meesha iga soo bixi ma yeelayno in badan oo idin garanaysa dhooban in badan oo idin garanayso ka wada midnaha dhooban raggii waxay baray baa jooga raggii ugu dhalay baa jooga wallahi inaan yeelin oo billaahana yeelin talaahana yeelin baasaboor leed naga noqo meeshaad ka timid aad
عدة دلالك واحد آد عدة جاجوسك واحد عاد عدي ومدى الصوماليات كوسو درتو يسدو دلتري آد ما يلين الدولين ما يلينو هل قبل أن الدفاع كرا نقوم يعني الذين دردارورين هل قبل أو قبل الصومالية كم منها والله حتى يسقط سدان الدفاع كرا إيرتري وذلك وسدح مليون يبر جفا كبض الصومالي قبائل الصومالية فرتال صار قبيلة كبض وانا دو قيدان هو يسدفاع ده ورعاود نلاشين ورعاود النمدين ورعاود ضميركين ورعاود الصومالي المدي وروحان شيغانينا عقوبة المهولين دينتا بل انت نوردقه حتى كريستان هدانا كريستان نمدين ما يسكو دفاعي كرنا هدان عوانها عوان نمدين ما يسكو دفاعي كرنا هدان قبلها حور العين تان اسكو قادرين انه اللي بنا وحباء وما هيو هدا وكوا سايقيا صوب حاضر وحلا وحرقانا وابقى وحلا وحرقانا لو ما واد عبسدين wargabdhaha beenta u sheegin Aristotle ninka Austria haysta markuu Germany jiray wuxuu isugu yeeray dadkiisa maqlu gabdhihii isugu yeeray wuxuu yiri ha guursanina bahalka cawaanka iyo fulayga iyo doqonka liana haddaad guursatiin wuxuu dhalayaa buu yiri asagoo kale toona kaas yiri Germany wax naga celiyo waa weyn halka nin oo xaniyaha le ka isugu tago yiri wada guursadu yiri kaas bilis hanoo guursanin yiri mid dambe doqon gabdhiina way soo wada xaadireen annagina waa wada baqanahay nin joogaana ma jiro timaa waxay u shallaysanayaan waa nefer shayman idilaahi waxa ragoo meesha jooga war waxaan ka baxno war wadankeena ilaahay koonkan qaybiyay oo dhismay oo sameeyay qolba meel u siiyay wallahi billahi ta'ala qoladan lahayn helay qoladan lahayna wax ku noqonay qoladan lahayna aadan ka muuqanayn ilaahay wuxuu na siiyay number 7 meesha ku yaal ربك عسى وجلاء كاسو قيس نوسية كاسو قيب نوسية كاسو هرال نوسية إلهي حكمة دي سيامر كيسالك إلى أن دقنا يكون نقطي بدأ صدح يكون يصدح بقول إلهي بنسية إذا نقولتك إننا ملأ عدول بنهايس قادو عبديله يسوع سنه ردنا المالنتي للصوح حناجيو مقالة مقدشو تاجي هاي وضياش الرئاب بيمشي كهاد لي يعملوا عقد شغليو هالكون بيتاجيهن كو حمر شوغنا والله نمكن ما تويل كادي بي أمر هالي كان نقضى إلهي عسيس الرحيم ولا يحق مكر السيء إلا بأهله إلهي وكتابك سكول انت هذا إلهي بين صنو كاغا مروا ما يسنينه هو يدا رالك هو يقول بقلبك كنه الله يقول بقلبك كنه نن الله نكيك رالك والله ويلكي سواي والله ويلكي سال لوقيل بحن ويلكي سال لواي إثيوبيا قدد ذي شيء حمر مركي دجال وكسر تضباطن يسديد أنا قيبن تضباطن يسديد قطعه أو قطعة بقول جرأي تهاي أميرة حكومة تضباطن يسديد دانين وأمريكا نكى دولة دجال الجود لي نكى الشباب جالنا والجود لي نكى لوفينا وحن لينا صدق كم إذا حتى إن سود أفريقيا الوجود ده تقول الجود لي رجع دجال هل سوق جود بيا كوحدة يا نمك قايلنا يا حمر كقايلنا يا وحن وش يا كوريدي إن جريها تشيفا أوردر كذا ميسكا ولا سارن إلا سووا ولا جود بيا ولا سارن أنا وقلبي نجح ما كان ولي جينا مارج لكن نكى صحية وسنكى سمرتي ولا يروح صحية ما محله يسوي حير ماشي على مرين تمقطع يا إني بيسموه يعني إلى صحيتها يقريني ودرسنا هيجور والله بالله تعالى أنا ولي قلبي نجح حرك إيمان مضان ولا الكي أنا ونمان مضان لكن واحد كحيان أجنه وهبل كين هبل كين ليسا ولا قرن ليسا ولا قرن بدك كلا تورستي قال لي تورستي كوي نوجو وينايو ندباتية دولة واحدة مسؤول هو هيستطيع أفرتن يشم كنتو أفيان كها أنا وحبا قرنا وضن كانوا وحكولنا تاريخ السنة 45,000 أنتوا الشباب يجعنتوا هذا كل شيء أنتوا أسووا كأفيان شيخ على النار سدا سوكالته وقرنتا نينكستو أفيانا ويقرنتا حلقي جسيل لا سجى شيء يوميش الشيء جناي مركو عند الله هاي مسورة هيسين نينك اللي يرادو أدير كياد هيسين حسن دارويز نينك اللي يرادو سكريا يدين شوجا رجي يودنا يدين ده رجي يودنا يدين ده كان مركا أنا نقدر نوتستين أوردر إثيوبيا ديشان الترادين وتوريستي ما يدين كي يلين معناه ماشي كجرا على الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته